ay dareemeen waa turitaan dadka shacabka degmadaasi Carmo inaan lagu kor dagaalamin ayay halkaasi uga guureen dhinaca fog ee gobolka Bari ayayna u guureen danina ciidan technical wato ka daba diro wuxuu yiri ama meydkooda ama iyagoo nool soo qabta wadul saagi doona ciidankaasi iyo waliba beelaha ay ka soo jeedaan waxaan dhinaca kale to mid iyo labo ka dul istaagi doona boqor Cabdirashiid boqor Cumar oo kamid ah ismada waaweyn ee Puntland ayaa ku dhawaaqay oo dani waliba uga digay dagaal oo ku qaada ciidankaas isagoo waliba ugu baaqay in hubka iyo ciidankaas ay wataan oo yahay ciidan deegaan iyo hub dadka deegaanku ay leeyihiin isla markaana deegaankooda ku sugan digniin culus ayuu dani u diray dhinaca kale to taliyaha ciidanka Puntland ee degmada Balidin ayaa isagana baaq soo saaray soo waliba digniinna dabada ka raaciyay waxa uu sheegay in hubka iyo ciidankaba ay yihiin ciidan deegaan hubkuna uu yahay xiniyo rag leeyahay aysan ahayn hadiyad Mareykan iyo dawlad federaal ay bixiyeen lays arki doonana hadii dani uu ku dhaco khilaaf xoogan ayaa ka dhaxdashay ciidanka Puntland taas oo la xiriirta talaabooyinka dagaal ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku qaadayo ciidamada taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale to Dani dhinac guulba maanta uga soo hoyatay oo ciidankii ku sugnaa Istanbul xirada Istanbul ee degmada Gaalkacyo wada hadal dheer kadib ciidanka Puntland ayay ku soo biireen oo dani ay isku soo dhiibeen iyaga iyo waliba ciidankoodiba hase ahaatee ciidamo fara badan oo ciidan beleedyo u badan ayaa wali taageersan dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo waliba la sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay mishaarkoodi iyo waliba gunno degdega dhinaca dawladda federaalka ay uga tirin Puntland gudaheeda ayaa wali la isku haystaa wadul istaagi doona xogihii ugu dambeeyay iyo khataraha waaweyn ee Puntland ay wajahayso ayaa muuqaalkan ku qaada dhigi doona hadduu Allah inoo soo dhawaado idinkuna aragtidina ay wala wadaaga qaybta commentiga wayaan ku bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda gudaha Puntland guud ahaanba hase ahaatee meelaha ugu dardaran ayaan ka dul istaagi doonaa ee ciidamo ayaa saacadihii la soo dhaafay isku hor fadhiya deegaanada ku teedsan degmada ama magaalada Rakaraaxo deegaanada ku teedsan oo dhan waxaa halkaasi ku sugnaa 12 saac ee la soo dhaafay ciidamo shalayta ka guuray degmada Carmo ee gobolka Bari iyagoo halkaasi saldhigyo ka sameystay waana dhinaca fog ee xuduudda Puntland ama gobolka Bari dhinaca ugu shisheeysa ayay ciidamadaasi saldhigyo ka sameysteen waa ciidamo deegaan oo deegaankan gobolka Bari ka soo jeeda hase ahaatee taageersan dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalayto ciidamo fara badan u diray degmadaasi Carmo kadib markii ciidanku ay dareemeen in lagu soo wajahayay gabiyahanba iskaga bixeen si markaasi dadkooda aan lagu kor dagaalamin oo magaalada dagaal uga dhicin deegaanadaas fog ayayna saldhigyo ka sameysteen oo ay degeen si nabadgelyo ay doonayeen inay deegaankaasi ku deganaadaan hase ahaatee Dani ayaa xalayto ciidamo hubaysan oo 35 technical wato sida dadka deegaanku ay sheegeen oo diray ciidankaasi oo ka daba diray ujeedada ciidankaasi la diray ayaa ah in ciidankaasi geeri iyo nolol lagu keeno ciidankan waxay la bixeen Almiskat Force bay la bixeen dawladda federaalka ayayna taageersan yihiin hase ahaatee Dani ayaa ku amray ciidankaasi uu xalay diray in technikada iyo ciidankaba ay soo qabtaan gacanta Puntland la soo galiyo haddii kalena nafta la dhaafiyo oo meydkooda la keeno labadaasi wax ka bedelan uusan jirin ciidamadii uu diray xalayto ayaa ilaa iyo saaka aroonimadii oo halkaasi ay gaadheen ishor fadhiya dadka deegaanka warbaahinta la hadlayna waxay sheegeen in cabsi xoogan ay ka qabaan in dagaal culus halka ka qarxo ciidankaas waxay iyagu cadeeyeen shalayba inaysan marna aqbalaynin wax la yiraahdo Dani oo isku soo dhiib la yiraahdo amarkii Dani ee 48 saacadood oo shalayta dhamaaday ayay gabi ahaanba diideen oo waxay sheegeen in Dani aysan isku soo dhiibeen ciidankan haddii si kale idinku dhigo Soomaalidu qabiil bay wax ku fahamtaayeen waa ciidamo iskugu jira saddexda beelood ee Uwar Saleeman Ismaaciil Saleeman iyo Ali Saleeman saddexdaasi ayay iskugu jiraan sidoo ay xoguhu tilmaamayaan hase ahaatee ciidamadaas dawladda federaalka ayay gacan saar fiican la leeyihiin xuquuqdii ciidanimo ee dhinaca dawladda federaalka ayayna ka heleen waana ciidamo qalabaysan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata
danina ciidamo ayuu u diray xaalad dagaal ayaan halkaasi raka raaxo iyo deegaanada ku teedsanba ka taagan ciidamaduna way soo fadhiyaan ka hor dhici mayno waynu eegi doonaaye dhinaca haddii aynu eegno ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ka amar qaadanaya bilihii ugu dambeeyey oo ku xaraysnaa xerada Istanbul ee degmada Gaalkacyo ayay wararku tilmaamayaan in ay isku soo dhiibeen dhinaca Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ku soo biireen ciidamada daraawiishta Puntland muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey iyo weliba warbaahinta gudaha ee Puntland ayaa tabinaysa in ciidankaasi si buuxda iyaga iyo hubkoodiiba ay ugu weecdeen dhinaca Saciid Cabdullaahi Dani is-afgarad dheer oo saacado badan socday oo magaalada Gaalkacyo ku dhex marayay garabyo u kala dabqaadayay Dani iyo ciidankaasi waxaa lagu guuleystay in is-afgarad lagu dhameeyo xiisada dagaal ciidankana ay ku soo biiraan ciidanka Dani ka amar qaata Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay oo munaasabada ka sheegay in aysan Puntland wada joogaynin ciidan federaal ka amar qaata oo taliyihiisa asagu uusan soo magacaabaynin oo meel kale laga soo magacaabayo iyo ciidankiisa inaysan wada joogaynin waana tallaabooyinka uu qaadayo ayay la xiriidha in uu doonayo inuu soo afjaro gabi ahaanba dhaqaaqyada ciidan ee dhinaca dowladda federaalka ka amar qaata iyo weliba siyaasiyiinta ka aragti duwanba waa khatar weyn oo dhowrkii maalinba ay markaasi wajahaysay Puntland iyadoo dhinaca kalena isma dhaqan iyo weliba siyaasiyiin ay si adag uga hadleen xaaladda halkaasi ka taagan ee dagaal iyo weliba tallaabooyinka siyaasadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ismada hadlay waxaa ka mid ah boqor Cabdirashiid boqor Cumar oo ka mid ah ismada waaweyn ee Puntland ayaa ugu baaqay dowladdu in dagaal aysan u horseedin Puntland isagoo dhinaca kalena xusay in hubka iyo gaadiidka dagaal ee dowladdu ay ku sii daba joogto ee deegaanka raka raaxo u guuray uu yahay hanti dadka deegaanka ay leeyihiin iyo hub ay dadka deegaanka leeyihiin ciidan dadka deegaanka ay leeyihiin iyo weliba hub ay dadkaasi deegaanka leeyihiin deegaankoodina degan wax dhibaatana aan ku haynin oo aan wadin isla markaana uusan ahayn hub hadiyad dowlad federaal iyo weliba dowlada shisheeye uga yimid toona wuxuu uga digay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uusan dagaal ku qaadin ciidankaasi waxaa dhinaca kaleeto iyadana hadlay taliyaha degmada Balididin ee gobolka Bari ee buraha Almiskaad degmadii dagaaladu Almiskaad ay ka bilowdeen ayay ahayd dagaalkii argixisada lagula jiray waxa uu taliyahaasi sheegay in hubkaas iyo ciidankaaba ay yihiin xiliyo rag leeyahay ama ciidan deegaanka ay leeyihiin iyo weliba hub deegaankaasi uu leeyahay isla markaana rag uu ilaalinayo wuxuu sheegay inuu tallaabo qaadi doono haddii dowladda Puntland ama maamulka Puntland ay weerar ku qaadaan raggaas iyo hubkaasi doondaansiga Saciid Cabdullaahi Danina uu arki doono khilaaf xooggan ayay ku dhex yeelatay dhinaca ciidanka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani dhaqdhaqaaqyadan ciidan iyo weliba weerarada galdarrada ee qaabka daran ee madaxweynuhu uu ku amray in ciidanka daraawiishta Puntland ay ku qaadaan ciidamada taageersan dowladda federaalka Soomaaliya waxay warar kale tilmaamayaan ciidamo ku sugan gudaha Puntland oo kuwii weliba dagaalka loo diray Gaalkacyo in dhaxdooda khilaaf uu ka taagan yahay kuwa raka raaxa naftirkooda ee difaaca ku jira saraakiil ka mid ah ciidankaas hogaaminaya ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn in dagaal lagu qaado ciidankaasi halkaas ku sugan ee deegaanka ee dowladda federaalka sheegtay inay taageersan yihiin markii khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan dhanka ciidamada daraawiishta Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani ka amar qaadanayay sababo la xiriira arrimaha tallaabooyinka siyaasadeed iyo weliba abaabulka ciidan iyo weerarada uu Dani ku qaadahayo ama uu amrayo in lagu qaado salgiyada ciidamada dowladda taageersan ayaana khilaafkaasi la xiriira waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho dhinacan haddii aynu eegno Boosaaso ilaa iyo Qardho naftirkeeda dibadbax ayaa maanta ka dhacay Boosaaso dhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa magaalada Garowe naftirkeeda waxay safgarada wali lama gaadhin 2,000 oo ciidan oo dowladda federaalka Soomaaliya taageersan ayaa halkaasi ku sugan taliyihii hogaaminayayna uu ka dhaga adeegay dhexdhexaadintii iyo weliba soo jeedintii Saciid Cabdullaahi Dani ahaa in ciidamada iyo hubkoodaba lagu soo wareejiyo isagana loo magacaabo taliyaha daraawiishta Puntland sida xoguhu ay tilmaamayaan waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii